munaasabad ballaaran oo lagu caleema saareeyay ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur ayaa ka qabsoontay deegaanka Buro Wadal ee gobolka Sool. munaasabadan oo hay mid aan loo kala hadhin miiqaamkeeduna u sareeyay ayaa lagu boqoray ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur oo ka mid noqon doona isimada Soomaaliyeed gaar ahaan isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn taasoo ka dhacday deegaanka Buro Wadal. waxaana munaasabadan caanashubka ugaaska ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka kala yimid golaha dhaqanka Jubbaland, golaha dhaqanka Puntland oo uu horkacayo boqor Burhaan boqor Muuse, golaha dhaqanka Soomaali Galbeed, golaha dhaqanka ee mandaqada isimadu ay ka soo jeedaan ee Sool Sanaag iyo Cayn, wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo horkacayay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliya. waxaana wafdigaasi ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Farole oo imikana ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee duurista iyo hawada Soomaaliya haddana ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose Axmed Jaamac Jeengeli, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulada Puntland oo iyana uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami. intii lagu guda jiray munaasabadaasi waxaa lagu caanashubay ugaaska cusub ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur. dhammaan madax dhaqameedkii iyo madaxdii ka soo qayb gashay ayaa waxay hadallo dardaaran iyo ducaba ah u soo jeediyeen ugaaska cusub iyagoona kula dardaarmay ummadda islaamka dhammaanteed waa ilaaliyaan nin kastana waa la weydiin doonaa wixii loo xil saaray marka laga hadlayo mas'uuliyadda qof walba xilkiisu wuxuu yahay inta uu hayaa xilkiisu yahay. haddii aad hortaada eegto ishaad waxay gaaraysaa meel kooban. haddii aad kor u baxdo oo diyaaradda fuusho ood kor usii baxdo waxaad arkaysaa boqolaal kiiloomitir baa ku muuqanaya. saa darteed waxaa leeyahay mas'uuliyaddu macnahaas ay leedahay kullamaa qofku xil weyn sii qaadaba waxa weeyaan xilkiisu waa kordhaya. ugaaska xil weyn baa la saaray. waxaan kula dardaarmaynaa oo nasaaxada koowaad ay tahay allah baa wax hagaajiya, ilaahay baa wax fudaydiya. xiriirka adiga rabbiga xooji baynu kula dardaarmaynaa. نواك بدوني أيقو يسمدوا بدنيهين حلنا الدونان أنا عن هاتك مضعو يخصي هالله أيقونا يهل الدونانين يسمها وايدين كبدوني وحي كالنتا أنه عنه كلنا يسمها والله قوانينا Soomaaliyeed buugiisii u yahay beesha inoo soo doortayna waa u hambalyeeynaya kulli hambalyaan leh dhammaan inta haddii aan dhaafo waa duco si aad baan maqsuud u lahay inaad maanta ka soo qayb galo xafladaan weyn oo meesha qiimaha iyo qaayahana lagu dhigay. ugu dambeyntii garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa erayo kooban oo duco iyo dardaaran isugu jira faray ugaaska waxana uu mikrofoonka ku wareejin doonaa boqor Burhaan boqor Muuse si uu kelmadiisa u yiraahdo isla markaana uu ku duwo hadalka si ugaaskuna ereygiisa oo u badanaya duco mahadnaq iyo baraarujin u yiraahdo. ugaaskeena aynu maanta hadal ku caleema saarayno waa weliba anagu aabihiina saaxiib ahay isagana aanu saaxiib gaara nahay. ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur salaadiinta kale ee ka kala yimi Jubbaland, Puntland iyo dhammaan geyga Soomaaliyeed Soomaaliga laga hadlo siyaasiyiinta halkan fadhida oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo madaxweynihii hore ee dowladda ama maamulka Puntland dowladda federaalka. dardaaranki halkan uu Sheekh Cabdinaasir ku furay oo xadiiskii sallallahu alayhi wa rasuulka laga wariyay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi
مسؤولية أمانتين والمناسبنا لكن المسؤولية إلهي وبردي مدشن أكهد بدونتنا إن شاء الله إن أتصيبي صحابي جليل كها أبو بكر الصديق ويري uga soo qayb gasheen caleemasaarkayga aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan kaloo ilaaway culimada iyo saxaafadda iyo hooyooyinka dhammaantiin waan wada salaamayaa ilaahay waxaan ka baryayaa culimadii iyo odayaashii ee aabbahay wada shaqayn jireen oo isimo iyo cuqaal iyo siyaasiyiin ba ahaayeen waanadii iyo ducadii iyo dardaarankii ay siiyeen mid ku dhaqma in ilaahay iga dhigo waan ilaahay ka baryayaa aad baanan u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noo soo sharafteen waxaan kaloo aan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada iyo beeshayda oo igu qadarisay iguna xushmaysay booskii aabbahay inaan u bedelo aad bay ayaguna u mahadsan yihiin iyo sida wanaagsan ay usoo aad baan idinka mahad celinayaa runtii waxa weeyaan waqtiguna waxa weeyaan aad buu u dheeraaday waana soo yara daahnay aad baan raalli uga ahaanaysaan isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii kale ee mikrofonku wada gaari waayey waxaan ka raalli gelinayaa waqtiga oo yar bay ku dhacday si kale layma ilaawin aad baan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan aad noo qadariseen oo weliba meelo fogfog aad nooga timaadeen dal iyo dibadba aad baad u mahadsantihiin dadka xanuunsan ee ducada dalbanayana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay caafimaad ugu bedelo xanuunka haya ilaahay waxaan ka baryayaa raxmaad khayr qaba inuu ina siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inaan soomaalida maanta meeshan isugu timi ee quruxda badan inay soomaali haddii shalayta meeshan ninka hor waxay ahayd laba isbuuc ka hor waxay ahayd meel cidlaaba maantana waa magaalo wey intaasoo soomaaliya iskugu nimid waxaan u malaynayaa haddii soomaali ay gacmaha iswada qabsan lahayd inay مولد علي ستار تي في لا سعنو